sida ay riishada ama baalka meesha suran uu isu rogrogayo u dheeliyayo aanu markaasi saaniye meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qalbigi mar haddii qalbigu uu sidaa yahay iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoos u dhaco waa dabiica marka uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri la qalbu ibn aadam asra'u taqalluban min alqidr idha istajma'at ghalayana qalbiga aadanaha ayaa wuxuu ka degdeg badan yahay xagga sida dheri karkarayo dab la saaray oo kale isu rogrogo qalbiga ka daran buu markaas haddana wuxuu yiri idha istajma'at ghalayana markii aad u karkarto xadiis kale wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qulubta aadanaha dhanba waxa ay ku jiraan Allah subhanahu wa ta'ala fariis suu doonu ka yeelaa isaga rogroga meeshuu doonu u jiheeyaa arrinka marka wuxuu muujinayaa maxay in qalbigu uu aanu meel aanu thaabit aanu ku ahayn arrinka waxa ka dhalanaya marka iimaankanu marka inuu kor u kaco hoosna marka u dhaco waliyalika sallallahu alayhi wasallam waxa ku badnay ducadiisa allahumma ya musarrif alqulub ilaahay adaa qulubta rograge midka qulubta rogrogow thabbit sarrif qulubana ala ta'atik ilaahay qulubtana waxaad u leexidaa xagga daacadaada adiga hoggaansankaaga riwaayaad kale waxa ku soo arooray thabbit qulubana qulubtada rabbi waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug riwaayaadkaas aan tilmaamayno dhan waa ahadiis saxiixa sheekh naasirna meel kala duwan marka ku tasxiixiyay allah subhanahu wa ta'ala macnaha soo tilmaamay rasuulna sallallahu alayhi wasallam allah wuxuu quraanka uu kiri inna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi ilaahay baba kala dhaxgalaya meeshii waxa imanaysa tahwiil waxa laga yaabaa in qalbigaaga iimaanka aanu gelin si marka filtration loo helo qalbiga si sahlan qalbiga iimaanka uu galo waxa loo baahan dadaal marka in la sameeyo walidalika waxaan u gudbayaa qodobadii biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala maxaa muujinaya waxaan jeclaan lahaa qof walba inuu tirsado nuqtada laga helo hoos ka xariiqo midda laga waayana ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu mahad celi aniga iska bilaabay haddaan iska helno qodobadan soo socda iimaankeena khatar buu ku sugan yahay koow haddaad is aragtid ama aan is arko ama qof kastoo muslim uu isku arka xaaladda soo socoto inuu macaasida uu ku dhacayo dunuubta teeda waaweynna aanay u kala socnayn dembiga uu ka daran yahana fududaysta waxaad ogaataa xaaladda khatar baa lagu jiraa walaalka culimada waxay yiraahdaan qofka markuu dembiga uu sameeyo oo maalin kale uu ku soo celiyo maalin saddexaad uu ku soo celiyo caadi u noqonaysa shayga markay caadi ay ku noqoto kadib kama xishoonayso wax khajala iyo xishood iyo sariig iyo dareemaysid ma laha fagaaraha la isugu yimaado waxa ka sheegaysa waxaas baan xal sameeyay guriga riba ku qaatay mushkiladaas baan galay allahumma sa'al laba ruux baan madaxa isku galiyay kuwii tolkeenaha kuwa kale ku soo duulay hub baan siiyay meelaha ka sheegaysa maxaa la macaasi caada ku noqotay ولذلك فائدة كجرت قوله جل وعلا في القرآن الكريم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون آية دائمين محايا لمحا ولم يسروا كلية ما شاء الله وشاقه يضو سياق قرآنه وإسوته محايا عدم الإصرار على المعصية إنه قفك آنوا دائمين وحيمودين يساقفك إيمان كيسا محايا هدو دائمه عادي أنه يساقفك مركي عادة أنه قتنوي أذكتها إنها كدا بعيد ومنكر ولذلك صلى الله عليه وسلم حديث وحوكيري كل أمتي معافى إلا المجاهرين ضد كودن دنبي قوال لقع فيه إلا قليها مركا ما لها اللي يسقي ماذا كالشيغة مركا سوحيري صلى الله عليه وسلم إساقوا الشرح يا مجاهرة وحيري قفبا حلو كالحمي سمينا يا وحوا بريسنا يا إيضا رب العالمين وأسطري ودبولي كدب سلح مركوا بريسو ضدك صهر فريسنا يا وحوا لي عملت البارحة كذا وكذا حالي وحسن سميه حالي وحاسي وحاس بان سميه ودرجتي قف با وحو سمينا زنا كدعيسه وشرح يا ماشو كبلابه ماشي كدمات الا ماشي كدمات حرام بو غله ماشي كبلابه الا ماشي كدمات شرح يا iyadoo wax sirriigana wajigiisa aanay ka muuqan arrinka hadii la isku arko macaasida adoo la jahray adoo isku hadaad isku aragtay waxaad ogaataa iimaanka dacfi ku jira saadarteed waa symptomka ugu horeeya ee ugu baraarujinay arrinka labaad qalbiga oo engega qallayl noqda wax galaya oo khayrana aanu jirin ilaahu maanta hadii lagu aqriyo wax kasto ay kula ku taagantahay sawaa'un alayna aw 'adda am lam takun min al-wa'idin amana wa'di ama hana wa'dinin arinku jinjin buu noo yahay meel buu noo taagan yahay harka marka la gaarana arrin sahlan ma walidalika
الله سبحانه وتعالى قرآن كوحا وكيري ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة انت كذب قلوبتين واي انجكتي وحين لم من نقطة سيدة دقحان توكل marka dambe waxa la laga joogo dhagxaan in loo gafa maaha dhagxaanta hadii qulubteena iyo dhagxaanta la isbarbar dhigo oo aan niraahdo dhagxaanta iyo annaga dhagxaanta naga adag ama dhagxaanta nala mid hadaan niraahdo dhagxaanta waa loo gafay in loo gafana waxa muujinaya quraanka aayada marka la sii wado wuxuu leeyahay wa inna min al-hijarati yan loo gafina dhagxaanta waxa kamida lama yatafajjaru minhu al-anhar kuwa biyo ka soo burqada wa inna minha lama yashaqqaq fayakhruju minhu al-ma' kuwa waxa jira dhanbalmo biyuhu ay ka durarsadaan wa inna minha lama yahbatu min khashyati Allah kuwa waxa jira soo dilan dilooma iyagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqay aayad kalena waxa ahayd haddii quraanka aan ku soo dejin lahayn buuraha dushooda law anzalna hada alqur'ana ala jabal waxaad arki lahayd isagoo dildilaacaya marka dhagxaanta in loo gafa maaha Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku misaali waa misaalka ugu khatarsan ee aan dul marno in qalbigeena dhagax lagu misaaliyo qofkana markuu qof ka soo taago wuxuu leeyahay ma dhagax baa tahay waxba ku geli waayeen xaaladda saddexaad haddii la isku arko iimaanka inuu dacfi uu ku jiro muujinaya waa maxay cibaadada markaad sugi weysid salaada marka lagu jira maankaagu maqan yahay dhammaanteena sidaa ah quraanka marka la aqrinayo ku ta'fiirinayn ducada adoo dhoohan baa gacmaha kor u taagaysa walidaalika sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yaqbalu aw laa yuqbalu دعاء من قلب غافل لاهي حديثك وحديث صحيحة شيخ ناصر وكشك على سلسلة شنبق لفردني سقال دعاء كسوف شي قلب دوهن إسلام كان هولا أو هولك لكم مشغول سن إلهي ما أقبله وحضر كيسا قف قد جعمها وكبه تاقي أنا لسوا عن الدعاء ديس وحضر كيسا قف ما أنت تصبح عيساء وضدك دكوها ماشى ومرة يستغفر الله إذا أنه فهمي وwaxa arkaysa subxaan allah ilaalin aanu fahmin cibaadadii wuxuu ka baxaya meeshii iyadoo aanu dhadhansan xaaladda hadii la isku arko iimaankeena dacfi ku jira xaaladda afaraad cibaadadii inaad ka caajistid oo lugu jiid aad ku tukatid lugu jiid aad xajka aad ku aadid jimcayaashii laga waayo dacfi weyn ayaa markaa jira walidaalika allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay munaafiqiinta wuxuu yiri idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusala haddii salaada u istaagaan iyagoo lugaha jiidaya ayay salaadii aadayaan buu waana arrin lagu yaqaan qofka munaafiqa waxa laga yaabaa xajkiya ku waajibay markaas wuxuu leeyahay sanadka dambe la gaaraya sanadka dambe sanad buu u rahananaya markuu isiraada hadda baxna wuxuu leeyahay sanadka dambe markuu 2 sano marayo 3 sano uu marayo 5 sano uu marayo baasaboorku ku aadi lahaan ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta uu galiyay diyaarna aanu hayn inuu dhaqaaqo ayaa waxa laga yaabaa in doodkii marka uu yimaado ninka marmarsiyaha raasanaya ilaa xajkii lama gaarin waxa laga yaabaa hadii telefoon loo soo diro la yiraahdo gurigi dariskeena xaaj Abbas uu lahaa waa beec $1,000 inuu meesha ka soo bixinayo mataqaan markii isagoo xawaalada ku diro arkaysa inta ka horeysana waxa laga yaabaa inuu ku soo hordhigo 1000 cudur inuu ku soo hordhiga laga yaabaa yiraahdo meeshan bay ka dhacday inta haddaan isku aragna iimaankeena dacfi baa ku jira ولذلك علماء يرادين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ضد قوم كتجي مايان إلى الدب أسود جيان إلا إله سبحانه وتعالى يقول دم الدب عليه صفقة هراء ذو الجوجات كلابات مركات أدادسة هذا أركي صلاة الجماعة كداهيسة هذا أركي إن تكنكر السنة تبقى كجابينيسة حالة ده هدي اللي يسكو أركي إيمان كي هصب وداعي ولذلك وحى لويقانا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنبياء بإله مركو كان لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وحى كوا أترتم أدك دق خيرات إلهي نبريه واتن آيات القرآن كإلا وحيابا لو أقول سكر وحى كمنا إن إيمانك وضعف وكجره قفك وسيحانا يا هبينك صبحي بوسوت توسيا إيضا وح يعني بروبلام أي مشكلة أنا يكون إيمان لكن وحارك قفك وجهي سبدلا 10 دقيقة قفك وقصله 10 دقيقة مانكي شو مقيه 10 دقيقة ضدكي ومركب وقعن قادة 8 دقيقة وحناقسيه قف شلع سلام يسي أو حبك كوهي بما ما أنت كاسو 4 سلام ترضى فيسا مزاج كاغا يموت كاغا دم بس بدله ولذلك واحد أركي سبحان الله بدن ما أنت مود كي عادي ما عادي به مال ما نضن وحلا يا قف كإنه يراد كان أهل الدين كان إنه يراد الجيم بين سجاشك سنة كان كلام إنه يراد بوفس بين سجاشك سنة أو بارانويد بانه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت المامي ضيقة إسقى قفك كو إيماني إنه يهي ضعف الإيمان إن أدتك كدد
oo aadan salaanta aadan ka qaadin oo salaantii aadan la raadsan oo meeshay fadhiyaan aad ka orodid oo masjid walbana aad tiraahdo masjidka ma tagay afartan inoo garka dhaadheer baan u nacay masjidka ma tagay meelaha dumarka isugu yimaadaan maxaa la naagaha maraha jiidayaan nacay wadaadadan maanta dhan xalaal iyo xaaraam qofka markuu isku arkay iimaankiisa dacfi ku jira maxaa sallallahu alayhi wasallam xadiisu yiri mu'minku ya'laf wa yu'laf lahu المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ويؤلف